balaaran oo lagu soo bandhigay buugga magaciisu yahay hawd iyo halgan oo ah buug ay bulshadu aad u soo dhaweysay ayaa lagu soo bandhigay goob fagaar ah. haddaba buuggan waxaa qoray qoraaga da'da yar Saahid Daahir Saahid waxaanu ka waramayaa dhinacyo badan oo ka mid ah dhaqanka Soomaalida gaar ahaan dadka dega hawdka oo ah dad xoolo dhaqata waxa uu si qoto dheer uga sheekeynayaa halganka nolosha hawdka iyo sidii ay ahaan jireen waxaana ka noqon soo nooleynta afka Soomaaliga oo si galabsi noqonaya waayada dambe. haddaba xafladan waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed qurbo joog ganacsato iyo dhalinyarba. waxa ugu horreyn ka hadlay aadan Maryacade oo ka mid ah qurbo joogta dalka oo shahaado sharaf ku doonsiiyay qoraaga da'da yar Saahid Daahir Saahid kuna sii dhiirigeliyay dadaalka uu sameeyay waxaana hawada ka mid ahaa bismillah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دمانتين وعيدين مع النقيا كلمات بدن أنا ورن معايا كل بوجا وأنا أركي وأنا همبليين يا بوجا يعني إنك قري الساحل رنتي وحقريته وحكمته البحرمين كادونك سيفلستيشن كمتها هي كمتها وحلا قرا وعكور هيسان ملها قار سلوب بدل التاريخ ده waxyaabaha la qoray marka waxaan runtii aad baan arinta kor ugu qaadayaa anigu kulay hadal badan bay hadalka la soo gaabiyo kuna farxad bay tahay anigoo kulay meel halkan aad uga fog ku nool inaan ka qayb galo barnaamijka kaliya waxaan sameynayaa waxaan honor gareynayaa ama sharfaya ama mahadnaqaya qoraaga buuga oo aan siinayo shahaadatul mahadnaqa fadlan بارك الله فيك. مركا النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. مركا قفك هتو ددال سميو إن لا ينكرش كريو إن لا ديثي كريو هو مشروع. سيدكو إن قرادي إنك قدر بانو حاليا intuition وحليا قد بدنا نحصل دعيان أي إذا كتيرة. مركا أي قفك كر لوقا هذا هو مهم ويا. مركا أنت أصلا أورانيا وأنا مع سنتين وبالله التوفيق والسلام الله على بيوكنا هلا يبسط. استسمع تقول التعبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مركز كوباد وحان سلام يا دمان مرت شرفتا هل كان عاوة أتمي إني بقادسو ونما هاد نغضو واندين راعينا ياي إبستنا بوغن وقرأي قراءة دادا ير ساهد داهر ساهد ورنتي anigu aan jeclahay in aynu garab istaagno isaga iyo qorayaaga dhalinyarada ah soo baxaya waan ku celinayaa muhiimadda ama xafladaha caynkana aynu u limanayno ama loo qabanayo waxa weeye marka koobaad inaynu dhiiri gelino qoraaga saahidoo kala kana iibsano buuga oo qof waliba markuu soo galayo oo hore u sii iibsado taasi waxay keenaysaa in niyadiisu ay dhisanto oo markaasi uu isku dayo inuu buugan iyo buuga kale oo farabadan uu qoro taas waa iga dardaaran iyo bogaadin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan marka koobaad iyo mar labaadba u mahad celinayaa qoraaga da'da yar aniga oo ku boorinaya inaanu halkaas buugan ku joojin ee uu buugaag badan oo tayale oo fiican uu inoo qoro inaguna aynu halkaasi ku daba istaagno aynu halkaa kasii wadno waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قراءة بوغا مصر ساهد odayaasha madax dhaqameedka dhalinyarada mudanayaal iyo marwooyinba abtigay Axmed Sheel oo waayeelka ugu muhiimsan ee goobteena la jooga dhammaantiinba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii haddaan laba u kala qaado qodob waa goobta oo goobtu runtii ah goob aad u qurux badan dhalinyaro badani fadhido waxa lagu soo bandhigayaana uu yahay buug af Soomaali lagu qoray. anigu waxaan ka mid ahay dadka u werwera af Soomaaliga waayo luqadan si rasmi oo fiican ugu hadlaba af Soomaali baa jira waxa kale oo iska tabartabadun af Soomaaligiina waxaad moodaa inuu imaka daayarteeni ka sii guurayo marka munaasabadan iyo munaasabado kale
oo runtii badan oo aan tegayba oo lagu soo bandhigayo buugaag af Soomaali lagu qoray waxay igeliyeen yididiilo iyo nayaayiro badan oo ah in kastoo aanan hubin in sida loo soo xaadiro buugta loo akhriyo ama af Soomaaligii ihtimaam loo siiyo way dhalinyaradii waxaad arkaysaa iyagoo leh waxaan yahay iyo waxaan yiri iyo kelmado noocaasa marka maadaama dhalinyaradu ay tahay hadii jeer cidda goobahan soo camirta waxaan ku boorinayaa in af Soomaaliga la ilaaliyo oo maxay ahayday marka afka ummadi leedahay la ilaaliyo wax la ilaalinaya taariikhdeeda wax la ilaalinaya dhaqankeeda wax la ilaalinaya soo jireenkeeda iyo wixii ay lahaan jirtay aad iyo aad ban madasha uga mahadnaqayaa aadna way ila qurux badan tahay qodobka labaadna waxa weeye buugga iyo qoraaga runtii waxa weeyaan waan dhiiri gelinayaa waxaanu mudan yahay in la dhiiri geliyo madalahan oo kalena de kolley mar haddii ganacsadana waa la yidhi aniga horta 20 buug baan iibsanaya waayo madashan oo kale waxa buuggaba loo soo bandhigaa inaynu iibsano oo inteenan fadhida horta intan maka taala sii qaadno si aynu u dhiiri gelino qoraaga iyo qoraayada kale ee iman doonaba iyo asaga oo de maartay kulli laga yaabo inuu qaar kale qoraba taasi waa taas mid waan ka cudur daaranayaa oo buugga maan akhriin imakuun baa la dhiibay laakiin de wax ku duugan khalad iyo saxba uu yeelan karaa waana daabacaadii u horeysay daabacaadda u horeysana hadii jeer ama typing error ha noqoto ama maartay khaladad kale khaladaad waa ka soo bixi karaan laakiin waxaan qabaa oo aan aaminsanahay inuu yahay buug runtii qiimo leh marka ciwaanka kaliya laga soo qaado waayo waa xil guud oo ummadda saaran in soo jireenka iyo taariikhda ummadda la ilaaliyo oo la kaydiyo oo la qoro ninka zamankan yiraahdo buug taariikheed baan qorayaa ama taariikh ku saabsan baan qorayaa taariikhdu waa iyadoo aynu ognahay dadkeenu inaanay lahayn weel taariikhdu waxay ka hadashaa dhacdooyinkana wax lagu kaydiyaa jira weelkii iyo agabkii lagu kaydin lahaa ma lihin waxa weeyaan waxaynu nahay sidii ninkii halkan sheegayay xubnihii halkan ka hadlay mid ka mid ah oral society dad afka wax isku gaarsiiya taariikh kasta oo dhacda ama dhacdo kasta oo ina soo marta waxa lagu kaydiyaa xusuus cid gaar ah baa lagu kaydiyaa imaka de qalab baa la helay fiidiyoyaa la helay qoraalaa la helay wax badan baa la helay tiknoolajiyad baa timi laakiin waqtiga hore ee laga hadlaayo maadaama aan waxyaabahaasi jirin dad wax qorana aynaan u badnayn taariikhdu had iyo jeer waa controversial way waa dhacdooyinka waliba inaga dhexdeena imakana sidii xoolaha loo kala dhici jiray baba loo kala dhacaa ama ha samaato ama ha xumaatee waxaad arkaysaa un adigoo leh adoo dhacdo ka sheekeynaya buu odhanaya oday reerka iyagaa buu ahaa oo saylac buu deganaan jiray waradar buu marka taariikhda imanka waa la kala dhacaa waa la kala qaadaa maadaama aanay kayd sugan lahayn marka dadka wixii intii maskaxda wax ku haysay in laga reebo oo lagaga reebo kayd rasmiya sida qoraal iyo aaladahan kale imaka la helay runtii waa arrin aad iyo aad u muhiim ah hadalka ku dheeraan maayo intaasaan ku soo gabagabeynayaa qoraaga buugga waxaan ku dhiiri gelinayaa inuu kuwan iyo kanna maaragtay uu badiyo qaar kalena qoro dhalinyaradana waxaan ku boorinayaa inay maaragtay qoraalka iyo afkaba u soo jeestaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دمانتين أخيارتك سو قيب قشي مناسبة إن كنا بوغ سو بندقى أينو كشرفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو وقوه الرسان ولي شيل إنما قنعسن
siyaasi sidaan ahaa umaan retire noqday haddaan u soo noqdo ujeeddada caawa aynu halkan isugu nimi hadalka badin maayo inankeenna barakaysan ama abtigayga shabaabka ah baan idhaahee yar saahid daahir saahid faray hambalyo 100% dhaaftay baan u gudbinayaa laba qodobna waan ugu gudbinayaa dacdiisa uu hawaysay inuu buug qoro iyo buuggii oo ku salaysan dhaqankeennii weliba hawdkeennii aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa idinkana waxaan idin leeyahay anigu horta dhaqan baan leeyahay ilaa Mareykan ilaa Ingiriiska go'aan baan gaadhay 1991kii nin kasta oo Soomaali ah magac Soomaali sheeganaya ee qora buug xitaa hadduu aniga yaayay iyo halkan ka soo jeedo dhiirigelin awgeed ma eego waan iibsadaa 46 buug baa London yaallo aan iibsaday 15 baa wax macno leh aan ku arkay koob iyo 30 kale qaar anaabay jinsi ahaan iyo qoys ahaanba ii caayay mid kale hadduu berito soo baxo caayaya aniga iyo jinsigayga iyo SNMiyana waan iibsanayaa waxaan uga dan leeyahay qofka dhalinyarada waqtigan jooga ee wax qoraya waajibaadka koobaad ee qoladayada waliba sii socotay ee gabowday saarani waxa weeye dhiirigelinta qofka wrong or right abtigay Cabdilaahi baa sheegay buug kasta oo la qoro iyo ama thesis kasta oo aad qorto jaamacadaha marka thesis-ka la qoro waxa uu macallinkaaga iyo cid ay kugu hagaajisaa waxa weeye xitaa wax kale iska daayay spelling mistakes ka yar in lagu saxo buug kasta oo la qoro mistakes waa laga helayaa ha eegina mistake waxaad eegtaan dadaalka inanka iyo tacabka uu geliyay waxaynu uga abaalgudi karaynaa oo kaliya waxa weeye qof waloo caaw halka jooga buugga hadduu iibsado abaalgud bay u tahay dhiirigelinna way u tahay aad iyo aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay walaal waxaan kugu hambalyeynaa inuu buuggii 16aad nafla aad ma caaw iibsatay waxaan markaa waxaynu rabnaa gabagabada inaan barnaamij ku sii dhawaano buugga waxa soo akhriyay faallo kooban ka soo jeedin doona Saciid Beegsi Maxamed oo aan isagana ku soo dhaweynaya masraxa dabeedna qoraaga ayuu isaguna ku sii dhaweyn doonaa barnaamijkuna markaa gabagabada ayuu ku sii siiqi doonaa markaa soo dhawow intaa kadib waxaa si faahfaahsan buugga u lafaguray mid ka mid ah kasoo qaybgalayaasha xafladda iyo qoraaga buugga saahid daahir saahid oo sheegay in qoritaanka buugga ay ka soo martay marxalado adag safar dheerna u galay sidoo u heli lahaa xogta saxda ah ee dhaqanka dadka deegaanada ballaaran ee hawdka waxaanu sheegay inay muddo ku qaadatay sidoo u heli lahaa xogta saxda ah kuna hirgelin lahaa buugga magaciisu yahay hawd iyo halgan waxaana hawdalad ka mid ahaa waxaanu in yar eegaynaa xogta buugga ku jirta taariikhda uu sido inagoon markaas aada ugu sii gudagalahayn kow buuggu sida magaciisa ka muuqata waa hawd iyo halgan deegaan ahaan waa dhulka hawdka ayuu ka warramayaa taariikhda uu badan yahayna waa halgan iyo dagaallo dhacay iyo waxyaabo sidaasa dhulka hawdka markaa sidiisaba inaad ku noolaatid ayaa iska ahaydba halgan oo dhul oomana ah oo biyaha meel fog loo doonto dadku ay xoolo raacati yihiin socdaallo dhaadheer iyo sahan iyo geediyo hayaan ku jira taasi waa mid way isleeyihiin markaa magaca buugga ee halgan iyo hawd oo dhulka lagu noolaaba marka dagaaladaba laga tagay in lagu noolaada ayaa halgan ahayd marka horeba inkastoo uu dhul wanaagsan ahaa xagga daaqsinta oo xoolaha iyo barwaaqada uu aad u wanaagsanaa markuu barwaaqada iyo haddana kolleyba waxay ahayd nolol iska adag oo qof adagi uu ka bixi karayay inaad dhulka hawdka ku noolaataa waa talabaada wuxuu ahaa dhul dagaal ka jireen oo la isku haysaystay oo marna Soomaalida meesha degtay xoolaha ku dhaqata ay xabashi la halgamaysay dhul ballaarsi wado oo dhulka qabsanaysay oo damcaysay inay ka taliso qofka Soomaaliga isagoo aan aqoonba cashuur iyo baasaboor iyo socdaal meel la isweydiiyo marka la dhaxo xoolahaagii gibir ka bixi ama gaarigaagii ama dhuxushad garaacaysay iyo waxaad beeranaysay
way iska adkaydo taana marar badan dagaalaa ka dhacay waa xogta buugga ku jirta waxa kale oo halganada ka mid ahaa daraawiishtii dhulka timid oo markaa iyadoo dhulka ay ka dagaalantay ay ku jirtay markaas deegaanadaas hawdka inkastoo markii dambe sool oo Soomaaliland ay fariisinkii ugu weyneed ka samaysatay haddana ilaa markii dambe ee daraawish ay jabtay way cagtay sii marayso way waa halkii ay ku dambeysay oo sayidka waa la sheego inuu ku xijaabtay meesha email la yiraahdo oo maanta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka tirsan juqraafi ahaan markaa oo dhul ballaaran oo xagga xuduudda Soomaaliya gaalkacay kaga dhawaanaya xaggaana xadka caabud waaqiya aaga ka gaadhay marka wardheer la dhaafo galbeedkan oo ilaa jigjiga iyo dir dhawana iyo dhagax buur iyo dhulkaas oo dhan waxba ka soo gaargaaraya taariikhi ka dhacay oo buugga kaga jira inta uu soo badan yahay waa intan Soomaaliland Hargeysa iyo Burco ku beegan taariikhdii ka dhacday xoogeeda ayaa ku qoran waxa kale oo buuggu ka warramayaa habkii lagu dhaqnaa dhulkaas dadkaas ay u noolaayeen ha noqoto colaade haday dhacdo sidii loo dagaalami jiray hubkii lagu dagaalami jiray sidii looga heshiin jiray guurka marka noqoto xoolaha dhaqan jireen iyo sidii biyo ugu heli jireen oo marna ay harooyinka ay ugu dhow yihiin doolo xagna awaare ay u aroorayeen marna burca yimanayeen iyo Hargeysa oo inta aanay wax biyo u dhaxaynin waxa kale oo uu ka warramayaa buuggu Ingiriiska laftigiisii markii la halgamayay xisbiyadii halkan ka sameysmay taariikhdoodii wax kamid ah xisbullah xisbi looran jiro Mathalan laan mulaaxaf fadhiyay oo deegaanka hawdkana nabadeyn xoolo ay kala qaadeen beeluhu u kala celiyay aakhirkiina Soomaaliland xisbi siyaasi ah noqday oo 60kii ku soo dhawaaday qabaa'ilka laftigoodu sida u dhaqnaayeen iyo waxyaabii ka dhaxeeyay marmar colaaday timaado marmar ay heshiis ahaayeen sida isku marti soo jireen sida isu dhaxdigi jireen maganta sida u bixin jireen waxyaabahaas oo dhan buu ka warramayaa waxa ugu dambeeyo oo uu sheegaya buuggu waa harooyinkii laga cabi jiray ee ku teedsanaa markaas haday tahay haragar duur haradigeed haradoolood sidaas u taxan markaas ilaa uu ku dhawaado meesha la yiraahdo beledweyne agteeda oo xadka waxa ka soo xidhan markaas Soomaaliya waa dhulka inta u ballaaran dhulka saas u ballaaran buuggu markaas xogtiisa ka warramaya iyo sheekooyin inta ku dhex jiro oo marba meel ka dhacay oo si gaar ah u dhacay waxaan ku soo dhaweynayaa qoraaga buugga wixii inta ka dambeeya xafladana noo soo xiri doona isaguna buugga wax ka oran doona Saahid Daahir Saahid oo iga dhintay bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli wa sallim alayhi nabiga ku sallino galad eebe gadaasheed waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay door uu ku lahayd hirgelinta caawa iyo in buuggani horteena u yimaado magacyadiina ma sheegi karo laga soo bilaabo odaygii harada dusheeda aan isku wareysanay ee xogtan ila wadaagay madbacaddii iyo asxaabta iyo akhyaarta tirada badan ee caawa barnaamijkan quruxdiisa iyo qabanqaabadiisa door ku lahayd magacyadiina maankaygii ku jiraan iyo quruxtayda dhammaantiinba waad mahadsantihiin saaxiibeeda intaasi waa mahadnaq guud cid walbana halkeedaan ugu abaalkeeda ugu ogahay qodobka labaad ee aada moodo inuu maskaxdayda ka guuxayo ama qof kastaba oo buuggan soo jaleeca uu ka guuxayaba ayaa rabaa inaan yar faahfaahiyo hawd waa deegaan ballaaran beelo ama toban Soomaaliyeed oo tiro badanna way degan yihiin nin walba oo buugga magaciisa arkaya waxa maankiisa ku soo dhacaysa beesheediina ma ku jirta halgankeeda kacidayda yaqaanaana wuxuu odhanayaa war garxajis buu la aadaya hadduusan odhanba habeyoodis buu la aadaya hadduusan dhihinba waa reesigu loo cilaan reesigu lahayn mar hababa oo muhulin ma dhaafsiisna buugga waa malayaal kollay imaankiina ku jirta waxaan se rajaynayaa horta marka aada buugga akhridaan ee aada ka bogataan wixii aada xukuna aada saaraysaan xor baad u tihiine maskaxdiina wax ka dhex guuxaya ka saara saaxiibaya
halkaasi waa qodob. haddaba xilliyada ka mid a ayaa waxaa dhacday inaan xogo badan oo iminka buuggan ku duugan maskaxdeedu ay isweydiiso, marjic iyo referensi iyo library ay ku qoran yihiin waaye anigaa ku khasbanaaday markaa inaan raadsado. xogihii markaan qayb helay ayaa waxay u soo dhacay waa armay wacnaan lahayd xogaha quruxda badan leh inta ka dhimanna intaad dhammaystirto inaad ummadii kale ee Soomaaliyeed meeshay doonaan waxa joogaan ama deegaanada hawd ka soo jeeda inaad xogtii gaarsiiso. sababtaasaa ka dambeysay inaan buuggan hawshiisa u dhaqaaqo. xaqiiq ujeeddo kale kamay dambeyn, ilaahna saas uu ogyahay. hawshii markii aan galay ee aan hawd tagay aan har kasta agtayda dhigay caqabadii u weyneed baan soo wajahday. hawdba waxa taariikhda la yidhaha ceeb baa loo yaqaanaa. qof taariikh raadinaya waa lala yaabayaa. hawshii u horreysay maalmii u horreysay dardar baan lahaa. tuulooyinkii markaan tagay aan tuulooyinka maqaaxida dhex istaagay aan si furan oo hadlay dadkii nin waalan baa laymoodayba. tuuladii ku xigtay ee aan usii socday baa laygu sii ballamiyay niman aan tolahay oo la yidhi anagu taariikhiyo waxba ka garan mayne ninkani taariikh iyo waxaa loo jeedin buu shubayaaye bal gaari oo rag badan kaga hortago oo haddama garanaysa. nimankiibaaba isu sugaysii diyaariyay anna waan usii lugayay tuulada kale. dee markay arkeen aan suuraysanay arkeen wixii la sheegayay inay wax ka duwan yihiin. caqabad isoo wajahday bay ahayd. caqabadda labaad ee soo wajahday waxay ahayd dadka dad taariikha haya waa dad tiro kooban. dadkaasina badankoodii way dhinteen, ka noolina xasuustiisiiba lumiyey. oo odayaad usbuucna raadinaysayo markaad u tagtaa lagunaya sariirtuu yaallaa ma ducaad u akriya mise taariikh baad weydiin adoo naxsan baad iska noqonaysaa. taasina xaajo kale ahayd oo caqabad weyn igu noqonotay. caqabadaha kale soo wajahay way badnaayeen oo way tiro badnaayeen. waxa ugu sii muhiimsan beeshii xaggii aan deegaanka ka soo jeeday markaan xogtii ka dhameeyey ayaan isir xogtii la midka ahayd ee xilliyadan oo kala dhacday ee beelaha kale reer hawdka iyagana saameyntii ay ku lahayd. matalan daraawiish iyo deegaanada beelo qaar baan ka sheekeeyey. beelo kale oo reer Sheekh Isxaaqa ama talo kale oo daarooda ayaa raadiyey saameynta ay isku lahaayeen iyaga iyo daraawiish ama iyagii ingiriis ama iyagii abxaar iyo markuu xayrasaas ku dhigo shaxanayay dhulka. beelihii kale waa iga shakiinba war ninkan muxuu taariikhdeeda iyo badaha iyaga geliyey. ujeeddada ka dambaysa maxay way ila meeraysteen kuwo guryaa laygu balamiyaa qof kalaa laygu sii balamiyaa qofba qof markuu dhiibay aan silsila taxalul aan galo galo ayaan dee aayar ka siibtaa. taasina caqabad aada u weyn ayaa haydo. waa sababta iminka beelo badani aanay halkan isaga dhex arki doonin. gari allay taqaanaa in le waa sababta ilaa hadda aanay kuwo taasina caqabad bay caqabadii kale xagga deegaanka aan ka soo jeeda baan u soo qura. dadkii deegaanka aan u xilmaday inaan macdan urursaday ayay moodi jireen. ku kale marka tiraahdo dhacdooyinkaasaan u baahanay wuxuu moodaya inaan mashruuc weyn soo qaadatay geesuu fiirfiirinayaa shardadaada inuu shiishaabay u dhudaheba ama ugu yaraan waa inaad wax bixisaa kharash. hadda adigii baa farsamo socda hawsha ku wadaba markaa ama wuxuu rabaa inuu kusii dilaawina odo hebel baa kuu geenayaa dee hala qaylay jaalle oo wax ka hadaldee mashruuc kale qorbaad ka timi. waxaasoo caqabadahan oo la kulmay baa haddana eebuurku qadaray inaan sobcaano oo aan meel qurban aado. meel dhaxaanoo marayaan haddana go-aansaday inaan hawshii qabyada ay ahayd weli aan ku soo noqdo. haddana qadarta waxay qadartay buuggu 2019 uu soo bixi lahaaye in hawl maktabad ahayd ay soo dhex gasho. haddana 2020 baa la isla galay. dee caawa 2021 ayay qadarta qortay in caawa uu bandhig uu noqdo oo dee hawluhu inaga tirada gacanteeda kuma jiraan. buugga dee idinkaan idin daayay oo hadalkana badin maayo oo madal hadaleed mama aha oo waa madal bandhig iyo carwo idinka iyo waxa la idin kala baxaya buugga
faalleeya gorfeeya waxaad doontaan ka yidhaaha haddii rabbi qadar madal kale oo gorfeeya dooda waynu samayn doonaa oo qadartu inoo ogolaato habeen aynu ku sheekaysano dood wixii su-aal qaba fikir kastana waan soo dhaweynayaa anigu oo wax alla wixii tala soo jeedinay dawaayo cashar oo mustaqbalkan qorshayaasha ku darsanaya haddii aan noolaado haddu day gaarsiisaba taasina waa taa waqti dhow oo aan fogeyn aan u dheerayna waxaan qorsheynayaa in daabacaad labaad oo tifaftiran oo faahfaahimo dheeriya iyo dhacdooyin kale oo ay ku jiraan beelaha soomaaliyeed ama tobanka soomaaliyeed ee hawdka oo inta nimanka ugu badan yahood aan ahaynay kuwa dee saamiga maqan ayaa raadinaya inta dambana si kaleba farbisan taasina waa taa buug kale oo xeerarkii suldaan diiriye iyo xeerbeegtidiisiina dhowaan waan qorsheynaya haddii qadartu iyo ogolaato hadalka waan dheereeyey idinkii buuggaan idin kala baxo